wuxuu habeenadii hore kaga duwan yahay in badan baa maqasheen qiso malaawaal ah oo la yidhaahdo waa qiso dhaba in badanna waxaa maqasheen iyadoo hab malaawaal ah loo hindisaya ama loo tusaalaynayo in laba qof laba xubnood oo jidhkooda ku jira ay isu saari karaan iyagoo dareen jacayl ah ama dareen walaaltinimo midku doona ha noqdo caawa waxaa hortayda fadhiya inaan ka yaray konton lamaane oo aanay komisyuntii la socon oo aan doonayay inay hogaamiyaan lamaanihii aan qisada ka sameeyey balse ay ka cudur daareen arrin muxuu ahaayey daruuri noqotay awgeed waxaan doonayaa marka koowaad inaynu u ducayno lamaanayaasha horteyna fadhiya oo aynu sacabkana u tunno doobabka aan ku jiro iyo gashaantimaha kale ee madasha joogana waxaa la ilaahay ay nagu anfaca konta kaa lamaane caawa waxaan u bixinay habeenkii casaa waxaa laga yaabaa casaanka inaynu dhegayna ka batay isagoo dhiiga isagoo colaada ama isagoo nacayba waxaan doonayaa inaan idin baro casaankii oo jacayla oo ubaxa oo nabada oo horumara halkan waxaynu ku haynaa maase la yidhaahdo naf jacayl ma loo huray sida magaceeda ka muuqata waxa weeyaan dareen dhaba oo biimo iyo halis badan muxuu ahaayey soo maray markii dambena badhaadho ku dhammaaday waxaynu inta badan u sacabtunaa ama aynu hambalyaynaa lamaanayaal abaalka ugu weynee isku hayaan uu yahay hadal lays yidhi oo ay isku calmadeen eegma dareen oo la ysku calmaday ama ka ugu fogo ah in caashaq uu isu galay labadooda waxaynu caawa halkan u joognaa laba abaalka ay isku hayaan uu kaa ka wen yahay oo wadaaga laba keliyood oo ay labadooda ku wada nool yihiin waa dareen ama qiso aan ahayn mid Soomaali u gaar ah aan ahayn mid Afrika u gaar ah ee ah qisooyin in adduunka ka dhacaan ay dhif tahay waxaan hubaa haddii adduunka oo dhan la tiriyo inaan 100 qof oo sidaas laga soo helay wali hadal baan maqlayaa labada qof ee maasada ka sameynay waxa uu ku bilaabmay dareen walaaltinimo waa laba qof oo family ah isku soo ag barbaaray noloshoodii iyo waqtigoodii caruurnimo ku soo qaatay iyagoo walaalo ah iyagoo aan markaa haabka ku hayn inay yihiin labadii qof ee Ilaahay isku qoray waxay soo wada qaateen waqtigoodii muxuu ahaayey dhalaannimo koodii waxbarasho iyo koodii muxuu ahaayey xanaqaad iyagoo walaalo ah waxa sikadiisa u timid qadar cid walba ku dhici kara oo Ilaahay marna aad oran karto sabab uu uga dhigay guurkooda marna aad oran karto waa imtixaan rabbaani oo adoomaha oo dhan u simeeyeen waxa dhacday wiilkii waqtigii la joogay muxuu ahaayey waqtigii la joogay inuu maxay la manaafacadsado xoogiisii iyo tabci waalidkiisu soo galiyay inuu ku dhacay qadar Ilaahay keenay oo wiilkii xanuunsaday ilaa heer uu gaadhay inuu u baahdo in xubin qof kale oo bilaadana laga soo saaro mooyaane aanu iskii u dawoobi karin waxaynu ognahay dadka heerka isu aaminaa ama biimaha noocaas isu galaa waa laba qof oo is dhashay ama wada dhalatay waxa malaawaalkeena ka baxsanaa in laba qof oo ilmaadeera ilmaabtiya habrowdaaga iyo wixii la mid ah ay ilaa heerkaas ay walaaloobi karaan ama ay ilaa heerkaas caawin karaan waliba waxaynu ogeen caloladayga noocaas inuu ragga ku badan yahay laakiin qof dumar oo kartida leh oo go'aanka leh oo muxuu ahaayey awoodda noocaas yeelan kartaana mid waxa haydaan haabkeena ku jirin waxa dhacday waqtigii wiilku oo xanuunku ku soo booday muddo badan waxa dhacday in 5 qof oo family-ga kamid ah ay isnoqon waayeen in ay muxuu ahaayey kelida u saaraan taasina ay kolba u sii riixaysay xaggii halista oo waqtigii xanuunka uu ku sii dheeraanayay waxa si la yaab leh u dhacday deeqdan rabbaaniga deeqdan guushan dhashay deeqdan guurkan dhashay iyo hadiyadan aynaan arag filanayna inaynu arki doono haddii aynu aragnana dhif noqon doontaa waxa dhacday inantaas oo kartideeda iyo go'aankeeda iyo calooladeegeeduba uu ragga ka sareeyo inay go'aanka noocaas qaadatay iyadoo markaa dareenku walaaltinimo ku salaysan yahay
waxa dhacday sidii bay ayaa hawshii ku hirgashay ilaahay isaga casi wajalla awoodda la caafimaadka inankii caafimaadku ku siiyey waxaanu in badan arki jirnaa haddii oo imka nimcadegan iyo ay noo qaadayeen cabdinaasir iyo najiib haddii beerku qaybsamo badh baan adigu siin lahaa waxaynu ognahay labada xubnood ee halkaa ku kala jira ma kala maarmaan iyagaa wada shaqeeya iyagaa dareenkooda abuura waxaanaynu isleenahay caawa malaawaalka haddii wadnuhu jacaylka qaadi jiray waxaan u malaynaynaa casrigan inay keliyuhuna jacaylka qaadi karaan waxa ilaahay sabab ka dhigay xubintii iyo badbaadadii walaaltinimada ahayd in ilaahay calafkoodii sabab uga dhigo lamaanaha aynu qisada ka samaynay halkan ayuu arooskoodu ka dhacay habeen dhaweyd waana imka lamaano ka mida lamaanayaasha adduunka dhifta ku ah maasada markaa sababahan u sameeyey waxaa ka mid ah waxaan isweydiiyey labadaa qof haddii aanay imka soomaali ahaan lahayn waxaa dhici lahayd inaynu qisadooda oo la turjumay oo intaasoo af ku baxday saxaafadda dunida ay nagu qabsan lahayd inaguna aynu baahin lahayn waxaan isla idinku qisooyinkiina maxaa u dhoofin weydeen kuwiina goormaa la turjuman doonaa inagoo marka horeba ku caanbaxnay inaynaan ninkeenna aqoon ama haldoorkeenna ama gaarideenna aqoon waxa inoo dheer inaynaan qisooyinkeenna adduunka aynu ka iibin karnaa inaan aqoon dareenka noocaasa ayaan istusiyey anigoo markaa haabka ku haya oo sheekadii aan laakiin maansadii samayn ayaa waxaa isku nimid 3 nin oo 2 nin oo ka mid ah caawa xafladda ay nala joogaan oo mid yahay abwaan yaasiin madaale midna cabdikariin axmed mooga halkaas soo fadhiyo uu yahay marka sawir arooskoodii ah oo aan aad uga helay oo qurux badan oo aad arkayso in maalgelintii ugu qaalisanayd ay meesha ka dhacday waxaanu inta badan naqaanaa maalgelin lacag la bixiyo iyo maalgelin erey la bixiyo laakiin maalgelin xubnaha jirkiisa qofku uu bixiyaa way yartay haddii qof la maalgashanayo inanta caruusadaaseen maansada ka samayna waxay bixisay maalgelintii ugu qaalisanayd markaa cabdikariin baa kelmadigu yidhi markaan ku yidhi qisada aad baan ula dhacay ayuu yidhi raggii hore halabuurka dambana waa tan la yar xanto ee la yidhaha waa yaro laangaleeyaan marka cabdikariin baa wuxuu yidhi waa nimankii hore hadday halkaasoo kale waxbay ka odhan lahaayeen buu igu yidhi markaa ereygii dhagahaygoo keliya kuma ekaan ee wuxuu tegey maskaxdayda isla maalintii baan markaa maasada qoray anigoo aan islahayn ilaa heerkan baad isla soo gaari doontaan waxaan doonayaa inaan maasada idiin bilaabo idinkuna ay la miisaantaan innagoo hambalyaynaynaa arooska qaaliga ah iyo lamaanaha dhib iyo dheefba qaybsaday maasada waxaa la yidhaha naf jacayl ma loo huray waxay ku bilaabaysaa diiwaanka hodankee qisadii halhaysliyo heesaha dareen kale hadba baalka lagu qoro haddii qays warkiisiyo boodhari halkuu dhigay hore loogu daabacay iminkiyo hubsiimada tii ugu habboonayd balan kuu hibeeyey murtidayda xaaneed sida uu hadraawiba mahadhada xasuusta leh hore maanse ugu dhigay haddaan laysku hagar bixin laysa siin halbowlaha ma hirgala jacaylkuye qofna weli hankiisiyo hamigiisa gaarkaa maysidhi hawaysiga hibee waaxyahaagoo habayaasha dhiig iyo ma haneeyey dabadeed hana qayo beerkoo weli hiilka gobonnimo naf jacayl ma loo huray marka maansadu waxay u taallaa si muxuu ahaayey history oo kale ama sheeko oo kale ah marka qaybta iminka bilaabmaysaa waa qaybtii walaaltinimadooda iyo sidaa isugu soo ag barbaareen ka warramaysaa hilba la iska beeriyo laba haybta wada mida dadna heerka qoysnimo holashada isugu xiga heegada ma fuuleen beri hore dhallaannimo heesihii barbaarnimo lagu soo habaayey iyo wakhtigii habboonaa iyagoon hanaansiga haabkaba ku sii hayn inay hoy wadaagaan ma soo wada hirgeliyeen noloshii hanka lahayd higsiga waxbarashada iyo hilinka tooskaa mid weliba halkiisii ma ka gaadhay heer sare hirka beegsigiisii hayaanka iyo geediga halkii loogu talagalay ma ku soo hoggaansheen waalidkoodii howlgalay abaalkii ma hidiyeen hadhka labada gelinee hadba dhinac u jeestiya ifku waa hantaaqo kollay hadima joogtiya hagar lagama waaye qadar mawla soo hagay ma haleelay wiilkii nabarkii ma heensaday damaqiyaha feeftiyo hiiraagistiisii ma ku sii hantaaqsamay socodkii ma howlgabay ma u baahday hiil dhaba
markaa hiilku midna waa hiilun midna waa hiil dhabo halkan waa lagu kala xidhaa dadka halkan hiiliyaana way yar yihiin marka waxa laga yaabaa inaad ama hidaadii noqoto ama hiilka dhaba aad hesho qof isu kaabiimeeyo socodkii ma hawl gabay ma u baahda hiil dhaba dadka ruuxu hagar baxa hilbihiisa soo qala naftiisana hibeeyo biimaha u halis kala hubaashima laga day haabhaabadkeedii iyo hidintii sheekada hadal aan la filanayn dhawaaq loo han weynaa iyo baaqursiima leh goobtiima laga helay hadduu dhaayaheeda iyo hidaheeda bili jiray sagaloo hugiisiiyo isna haybadiisa ah ma hurtoo nafteedii ma u hibaysatiisii markaa inanti sagal baa la yidhaha hadduu dhaayaheeda iyo hidaheeda bili jiray sagaloo hugiisiiyo isna haybadiisa ah ma hurtoo nafteedii ma u hibaysatiisii murtii hore siday tidhi habka labada dhaayood mid haddii la dhaawaco ugu hoyata tii kale lurta iyo halgaadiyo huqda iyo dhibaatada iyagoon hilmaamayn inay hiil wadaagaan ma hanayse goortii xubnaheeda hodanka ah halka laga dhaqaaqiyo hanaqa iyo beerkiyo wadnihiiyo halbowlaha waalmaysa siiyeen qofka aan hedii gelin ifka kama hayaamee isagoon lur iyo hawl iyo hadimo weyn qabin ma haleelay guushii sagal hadiyadeedii aan cidi hortii mudan ma ku helay bogsiimaha sagal hadiyadeedii aan cidi hortii mudan ma ku helay bogsiimaha hor ilaahay aadmigu duca ma ugu horsheen qalbi laba hareerood markaa halkaa waxaa ka bilaabmaya qaybtii jacaylka ahayd iyo guurkoodii iyo geed halkii markaa dareenku muxuu ahaayey laga ballaysimayey qalbi laba hareerood midba jeex la yidhi hoo hibashada ma daayeemaysu soo hiloobeen saqda dhexe habeenkii riyadiiyo hawaawiga iyagoo hamiga siman mid waliba halkiisii kii kalama haybsaday iyagoo hadraayoo hadalkoogu saa yahay waagu ma u hilaaca dharaartiina halaqsiga dhaayaha ka howlgala hagaag ma isku egeen hankoodii ma sii koray jacaylkii ma sii hagay ma u hiishay dooquna ma ku habay rabbina calaf arooskooda hodankaa alalaas ma loo huray dhallinyaro habaysani damaashaadka heerkaa hoobeed iyo ciyaaraha cawayskii ma horsheen hambalyada daraaddeed marka khiyaalka maansadu qaybina waxaa la yidhaha maanawaal qaybna malaawaal baa la yidhahayoo khiyaalka gabaygu waxa uu leeyahay inuu inkastoo aan aada uga sirigtay inaan qiso jacayloon aada u bumbuuniyo ka dhigay maadaama ay qayb walaalnimo oo badani ku jirto haddana halkaa khiyaalku wuxuu sawirayaa in maadaama qisadoodu ay dhif ahayd arooskoodii iyo hambalyadoodii ay ka soo qayb galeen dhirtii oo ubax soo daysay shimbirihii oo heesihii qaaday shinnidii haddaad arki jirteen islaamo fijaana soo xidhay oo aroos soo diiqay halka shinnidii baa malabkii soo xidhay oo fijaanadii kaatay hambalyada daraaddeed dhirtu ubax habboon iyo laamaha hareeriga rucub haabanaysiyo ma ku deeqday hoobaan shimbiruhuna heesaha luuqdiiyo hallaasiga ma u soo hibeeyeen shinni haamaheedii hilimada ugbaad kale manka uga hidayso huga xabarbagsheedii ku hagoogtay miidii iyadoon hilmaamayn gelbiskaa hanaan kale xedhyaha la soo hilay ma hanayse taagteed shinni haamaheedii hilimada ugbaad kale manka uga hidaysto qardhaas malabka hootiyo huga xabagbagsheedii ku hagoogtay miidii iyadoon hilmaamayn gelbiskaa hanaan kale xedhyaha la soo hilay ma hanayse taagteed ugaadhiya haddii uu dadku kala hawoon jiray halkan ma u midoobeen inay wada hirgeliyaan labadanii sanatay isu huray naftoodii noloshaad hir iyo doog heegada ku maasheen qaybtaa ducadaa markaa qoladanna way ku jiraan aamiinta waa la wada leeyahay halkaa noloshaad hir iyo doog heegada hanashada ku maasheen marna aada habaaskiiyo hadimada u mudateen mar haddii ilaahay hilinkii wacnaayo hoy raaxa taalliyo hogal khayr la idin dhigay hoodada ku wadalada ifka horumar waariyo ubad khayr la kala hela noqda laba hankoodiiyo hamigooda khayr kale dadku hiigsadaanoo hagaag lagaga daydo ka hawooda ceebaha inta xaasid haabkiiyo uurka hoose gelisee isha halista reebtiyo rabbi hawsha aadmiga dhibta idin hareer mari rabbi hawsha aadmiga dhibta idin hareer mari waxaa jirta
horta lamaanahaas waxaan doonayn inaan halkan idinkula wadaago waxa jira dad badan oo ka hinaas Soomaalida hinaas way isu fiican yihiin waxa dhacday islaam baa bari waxa la yiri ayaa lala guursaday oo maalintii dambe la weydiiyay oo la yiri heblaay gabadha lagu guursaday nambarkeeda maxaad ku saaf garaysay markaas ay tiri kullu nafsi daqiiqatul mawt marka lamaanaha qaar badan baa kullu nafsi daqiiqatul mawt ku saaf garaynaya waxaanu leenahay waxaan halkan isugu nimi inaynu duceyno dhiiri gelino garab istaagno qoyska islaamkuna uu dhiiri geliyay dhaqankuna uu dhiiri geliyay in dhagtooda iyo dhaqaalahooda labadaba la dhiso inagu ducayna hore waynu ducaynayna isku waarabaynu leenahay lamaanayaasha kale muxuu ahaay wadada ku soo jirana Allah isu fududeeyo halkaas bay ku eeg tahay